بسم الله الرحمن الرحيم ما تنتهي waxaa sidii loogu talagalay u socda howlgallada aan rabno inaan deegaanadeena uga ciribtirno argagixisada cadowga shabaab insha Allah ta'ala si guul ah inuu soo dhamaan doonaan waxaan hadda aan dhinac kamid ah ama qayb kamid ah aan ka joognaa Mujaahid Ali Guri oo qoliyaha cadowga aan runtii jab xoog leh oo ka soo gaaray dagaal 3 saacadood qaatay oo dhinaca bari ee magaalada uu nagu dhex maray nimankan qawaariigta ah iyo annaguba xalay waxa dagaal ma soo dhicin afeeshe diyaarado ayaa cirka ka duqeeyay oo qasaare xoog leh meedkooda banaanka daadsan marka insha Allah ta'ala waxaan ku rajo weeylahay inaan gudaha u galno haduu Allah yiraahdo qawaariig ka dulqaadayna ummadda Soomaaliyeed ee ku nool deegaanadan gobolka Shabeellaha way hadda ma deegaanka ku sugantiin mise deegaanka meel ka durugsanaa ku sugantiin deegaankan qayb kamid ah uga suganna ay qaybta kale ayaa kaga sugan qaybta kale kulay nimanka waa la duqeeyay annaguna waxaan isu diyaarinaynaa hadda sidii aan u geli lahayn haduu Ilaahay yiraahdo waa niman magaaladii xaafadihii dhexdooda raba inay ka dagaalamaan oo gudad ka qotay haddaan isku daynana inaan mataqaanaa waxooga ku geli karnaa ujeedka ama muhiimaddu waxay tahay in dadku aysan wax gaarin masaakiinta ah ee maatada ah ee rimiyiga ah ee meeshan ku nool shaazateed kuma degdegin laakiin insha Allah si farsamaysan oo qasaarowna uu ku yaraado shacabkuna aysan dhibaato soo gaarin ayaan si rasmi ah meelaha ay joogaan ugu tagaynaa haduu la yiraahdo way hadda deegaanka inta badan gacanta ayaa ku haya annaga ku hay way marka dagaalka ka dhacay deegaanka Masjid Ali Guri waqti badan oo qaatay ilaa xal uu soo gaaray xalay kadib wax dagaalamaya ka dhacay deegaanka wax dagaalama ma dhicin hase yeeshee waa la duqeeyay oo dhiigoodii iyo dhaawacyadoodii iyo meedkooda banaanka daadsan sida gudaha nogala soo sheegayo marka annaguna waxaan rabnaa inaan gudaha galno haduu alla yiraahdo iyadoo dadka shacabka ah ee gudaha ku dhex nool iyadoo wax qasaaraha gaarin ayaan rabnaa inaan gudaha u galno waana ku hareereysanahay qayb kamid ah magaalada badankeedna ciidamada ayaa ku sugan gobolka ah ee iskaashanaya way khasaaraha ka dhashay dagaalka inta uu gaarsiisan yahay waa maasan tahay nimankan jab xoog leh runtii ka soo gaaray waa niman runtii ummadda Soomaaliyeed xasuuqooda mar walba u taagan xaq ayaan annaguna ku soconnaa ilaahay haynoo fududeeyo nimankan meel kasta ay kaga jiraan waa ka adkaanaynaa khasaare xoog leh runtii soo gaaray ilaa 17 qofood ay sheegaya iyo diyaaradiyo xalay 20 qofood iyaguna madaasiic ku garaacay marka runtii khasaare xoog leh runtii ay qabaan inta dhimanna ama iyagoo nool ama iyagoo dhintay ayaan gacanta ku soo dhigaynaa haduu alla yiraahdo way waxa khasaare xaqiina soo gaaray ama tahay laba askari naga shahiiday rabbi naxariistiisa ka waraabiyo dhaawacyo waa jiraan oo ilaa iyo 7 ruux gaaraya way dadkaas wax dhaawacay dhimasho isku jira ma dagaalka oo kaliya ama waxa jira waxa qaraxyo iyo miinooyin la qarxay maya waxay ku dhaawacmeen dagaalka ku dhaawacmeen miinooyinkana runtii meelay gelgelisheen laakiin annagu dadka magaalada u dhashayaanahay dad yaqaanaan nahay meeshay wax gashaan annagu dadka meeshaan ku nool annagu dadkaana ah iyagana siinaya iyaga xogtana siinaya meelaysa naga firin ayaan ka soo galnay magaalada oo filwa runtii ay ku noqotay deegaanada kale oo hor cagta aan soo marayna sida Burka Caari iyo Daar Salaam iyo Gurida ciidamada ku sugan dagaalku markuu dhacay kadib waxaa la sheegay warbaahinta dawladda lagu qoray in gabi ahaanba deegaanka Masjid Ali Guri la wareegeen ciidamada dawladda haddana waxaa leedahay qaybo kamid ah ku suganaay marka sidee u suura gashay dadka deegaanka dhamaan la wareegteen in markale qaybo kamid ah waa ma tahay shirkad kamid ah shirkadaha runtii ku dhumaalaysanayaan annaguna waa awoodi karnaa inaan macna shirkadda iyo dadka meelaha ku nool waxyaalo ay soo gaarto maadaama annagu aan nahay dad dawlad ah oo runtii aan u soconno in shacabka Soomaaliyeed nimankaas aan ka badbaadino haddana waxaa marnaba runtii aan naga soo rogelin in dadka barnaamijyada ah ee meesha ku nool aan dhibaato aan gaarsiino waxaan annagu runtii aan fiirinayno waa maslaxadda ummadda meesha ku nool oo 12 sano ee la soo dhaafay dhibaneed marka magaalada badankeedna ciidamadiina ku sugan qaybta yar ay kaga hirsan yihiin si nabada looga bixinayo haduu la yiraahdo wararka qaar waxay sheegayaan in khilaaf uu ka dhex jira ciidamada ku sugan deegaanka Masjid Ali Guri dhanka dawladda kaas waxa khilaaf oo ciidamada ku dhex jira ma lahan ciidamadu waa mid ujeedkooduna waxa way qawaariijta inay ka tawasaan marka saaka maxaa idinka qorshaysan deegaanka
وبعثتي شاكي waxaan noo qorshaysan haduu alla yiraahdo in deegaanka hadda aan u socono iyo deegaanada ku xigaba shaakay warbix aan ciidamadeena ay gudaha u geli doonaan haduu alla yiraahdo waana kool jirnaa haduu insha Allah taala dagaalka ka dhacay Masjid Cali Guduud muxuu kaga duwan yahay dagaaladii kale ee ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe وبعثتي dagaalada waxa uu kaga duwan yahay balcad dagaal xoog leh kama dhicin ciidamadu si nabaday runtii xawaali iyo deegaanadii runtii ay isaga kala gudbi jireen oo maray ku ay la wareegeen dhinacan kale warciisa iyo qoor dheer ciidamada gal wax dagaal ah kama hor imaanin oo si nabada ay nimankii shabaabka isaga baxeen meeshaana runtii waxay shabaabku u ahayd deked waxa ka soo geli jirtay dhaqaalo runtii birday kor u dhaafaysa lacag $20 ah bacdana meeshaan lacagahaas ay ka soo geli jireen waxay isku dayayaan inay yara xooga ciidamadeenu ay hakad geliyaan dagaalka saacadaha badan hataa ujeedkeedu waxa weeye godadda dheer ayay magaalada bartamaheeda ka qabteen xaafadihi dadka degnaayeen taas dadkeed ayaa waqtigu nugula dheeraada ma haray markaan waa jabeen shacabka Soomaaliyeed runtii waa ay dibeen ummadda Soomaaliyeed ku nool deegaanadan ciidamada garab iyo hilba u yihiin deegaanka Masjid Cali Guduud markii laga soo tago halkee kale ee gobolka ka tirsan ay dagaalada ka socdaan waa maasantahay deegaano badan la soo xoreeyay burda caar iyo nawaaxigeeda Daarusalaam Baghdad ilaa iyo tuulooyinka Cali Guduud ku taxan oo dhan ciidamada jooga maadaama Cali Guduudna ay u ahayd beeskeedii weyneed maantaan soo afjarayna inta yar ay kaga harsan yihiin insha Allah taala meelaha kale ee noo dhimanna oo usii gudbi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo ma aaminsani kuwan qawaarijta ah ee arxanka daran runtii si tabartigaya inay nacili karaan waayo ujeedkiina maanta inaad la wareegtaa Masjid Cali Guduud ama deegaanada kale inaad u gudubtaan aad rajaynaysaa maanta masjidka qayb ka mid ah ma joognaaba ay marka meesha yar kaga jiraan ayaan ka shaqaynaynaa sidii ama iyagoo nool ama iyagoo dhintay aan dadku ugu soo bandhigi lahayn Cali Guduud markii laga soo tago aad iyo baal waa xarunta ugu weyn ee guleed gobolka Shabeellaha Dhexe maalmahan isku aruursanayeen gurmada kaga imaanaya al-shabaab ku sugan Masjid Cali Guduud marka magaaladaasna maxaad ka qorshaysan ujeedku waxa aan rabnaa waxay taaba shabaabkii anagu inaan isoo jahno meel walba gubad ha uga yimaado haddaba nimanka meesha ka dagaalamaya shalay ilaa waxay ka imaanayaan ilaa jeed jamaam ilaa kudaa ayay ka imaanayeen marka annaguna ma cabsi gelinayaan hadduu alla yiraahdo waa mahadsanyihiin shacabka Soomaaliyeed dhegeysanaya runta hore jidda dagaalka ayaan kala soo hadlayaa masaajidka Cali Guduudna qaybaha ugu badan ciidamadeena ayaa ku sugan inta dhimanna insha Allah waxa aan dheereen ayaan uga bixinaynaa inkastoo godadii ay ka qoteen la duqeeyay jab xoog leh uu soo gaaray waxaan runtii ummadda u baaqayaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qabaa'ilka deegaankan degan iyo runtii dawladda Hirshabeelle oo iyaduna qayb weyn ka qaadanaysa hawshan dabarna u ah inay usoo duceeyaan in Ilaahay u fududeeyo nimankan qawaarijta ah ee cadowga ah ee ummadda dhibaateeyay ee shacabka qarxinaya ee meel kasta qof kasta oo bulshada haldoorkeeda ah raba inay dilaan inaan ka adkaano ayaan rabnaa meel walba ay runtii ay ku jiraanna si toos ah ayaan u beegsanaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo iyaguna taageerada iyo ducadaba intaba waxaan rajaynayaa inay runtii ay nala soo garab istaagi doonaan waayo markii laga soo tago howlgal ka soo gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale Hiiraan waxaa ka soo howlgalo maalmaha howlgalka halku ku dambeeyay waa maasantahay howlgalku waa xaggaas waa uu ka socdaa insha Allah taala qorshuhu waxa uu yahay howlgalka xagga ka socda iyo kan inta ka socda iyo midka galmudug ka socdaba intaba inaan isku xirno oo nimanka cadowga ah ee shabaabka ah ee ummadan dhibaateeyay aan meel runtii ay ka baxaan inay waayaan ayaan qorsheeynu yahay iyaguna xagga ka soo durgunayaan dhinacan galmudug iyo galguduudna iyaguna waa ay soo galayaan annaguna halkan ayaan kasii wadaynaa marka ilaa ciidamadayada isku tagaana wajibeen howlgalka